بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داودياش قدرنتا iyo qiimaha inaga mudan alla ba ku xiran channelkan YouTube-ka Ismaaciil Aqila ku soo dhawaada barnaamijkeena qisooyinka balse intaan gudagalin barnaamijka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto channelka haddii aad nagu cusub tahay sidoo kale like-ta aad noo saarto si ay dhiirigelin inoo noqoto aadna share garayso barnaamijyadeena hadduu Rabbi raali ka noqdo maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena hadduu Rabbi raali ka noqdo fadliga Abi Muusa al-Ash'ari uu lahaa shaqadii siyaasadeed ee Abi Muusa al-Ash'ari iyo sidoo kale geeridii Abi Muusa al-Ash'ari ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena hadduu Rabbi raali ka noqdo Abi Muusa wuxuu ahaa saxaabigii ugu codka macaana markuu akhrinayo Qur'aanka nabigana wuxuu ku tilmaamay in la siiyay mid ka mid ah musaabiirtii Nabi Daawud Ali bin Abi Talib ayaa la weydiiyay saxaabigan Abi Muusa al-Ash'ari waxaana uu yiri cilmiga ayaa lagu subkay Abi Muusa al-Ash'ari Masruuq waxa uu dhahay asxaabta garsoorka taqaanay waa 6 Umar Ali ibn Mas'ud Ubayya Sayd iyo sidoo kale Abi Muusa Shacbi waxa uu dhahay cilmiga waxa laga qaataa 6 Umar Abdullah Sayd Ali Ubay iyo sidoo kale Abi Muusa waxa uu kamid ahaa saxaabadii ee fatwoon jirtay nabiga oo nool waxa kale oo uu kamid ahaa saxaabadii fatwota Umar Ali iyo Mucaad Abi Muusa marka uu tujinayo salaada subax waxa uu mari jiray safafka salaada nin kastana waa simi jiray xilliga uu Umar khaliifka ahaa waxa uu ku oran jiray ina xusuusi Abi Muusa markaasuu Abi Muusa ku akhrin jiray Qur'aanka shaqadii siyaasadeed ee Abi Muusa nabiga waxa uu u magacaabay inuu isaga iyo Mucaad madax ka noqdaan Sabiid iyo Cadan Umar iyo Cusmaanna waxa uu madax ugu ahaa magaalada Basra iyo Kuufa Abi Muusa waxa uu furtay magaalooyinka Baha Samzayat iyo sidoo kale meelo ka agdhaba geeridii Abi Muusa al-Ash'ari Abi Muusa waa dadaal aad u weyn markay soo dhawaatay ajasiisa waxaana lagu dhihi jiray saxaabigii rasuulka maad naftaada u kaadisid isaguna wuxuu oran jiray marka fardaha la diro ee ay u dhawaadaan meeshii loo diray orodka way dheereeyaan anigana ajashayda wax yar baa ka haray Abi Muusa ilaahay ha ka raali ahaadee waxa uu geeriyooday sanadkii 42 ama 44 ee hijriga barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta qaybta xiga aynu ku kulmi doono salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh